الله مهدله ما أنت هل كان محسوب نمت كم وقت وجود أنت كان ماشي على سوين قبلها باجون أنا كم عرفت أقرب من مرة أنا أعرف عن سويدنا لكن زي تدنا حنوز الأول أي حوار دف أول عنك لكن زي أنا كمان كستوى سؤال كده وش شيء وحنا عدد دولة كنور دولة المركز الدولة تاجس هذه حقيقة دي أنا كذا نبلها باجون وحن آدي تاجس النعي ما ده حدا قرن مدحوينها وزاران قدوميها برلمان دلالة أي وذان وحاكم مقطع إن أي ودنك جعليين ودنك صومالي إنه هالمرقوقة ساس درت هذا عدنا بله باجون آدي أتاجر سنة أتاجر سنتين أتاو كله وحام مقطع إن مدحوينها رئيس الوزراء وحيكون سنة ودبع سنانته إيو ماركت إن الديار ويهين إنه هذا عد كستوى يلا قلان تاسو الصومالي دن أما ميل كستو إجوان الصومالي آدي أو فرحان سيدو كله آدي أنا كان أتاجرينا وحكي صباحنا وواح موقضواي آدي تاسو موقتا ماركتي إن صون غندونتو أما أنسو عد هيبو مذوبانتي أما صوماليا إني ماركينو أي مذوبان sidoo kale waxyaalo badan oo dadka ay ku farxaan ay dawladda ay qabatay waxaana kamid ah in adduunyada dhan maanta Soomaaliya la aqoonsan yahay dhinac kastaba dhinac ciidan dhinac kastaba oo laga aqoonsan yahay taasna waxa way dadaalada ay muujiyeen madaxda qaranka sidaas darteeda annaka hadana beelaha baajuun waxaan u jeednaa ama aragnaa dawladda in hawlo badan ay qabatay wax badanna u harsan yihiin waxaan jecelnahay ma aragtay waxaan u muuqato in hawlaha dhiman inaysan ku dhameyn karin waqtiyada harsan waxaan jecelnahay in muddo kororsi loo sameeyo waana taageersanahay 2 sano oo kororsi in loo sameeyo أنا كأدانا بيلها باجون وحان مركز تبو جعلناهي runtii inaan sheegno sida xaqiiqda waa markii noogu horeysay haddaan aragna odayaasha haddaan nahay waa markii noogu horeysay ee madax maaragtay oo qaranka oo Soomaaliyeed ee isla wada shaqeeyaan intaan sanadood oo ku dhawaad 4 sano oo wax khilaaf uu ka dhex dhicin taas waxay muujinaysaa dad isku markii oo wada hadlayo wada shaqeynayo oo daacad isku inay wada yihiin marka taas waxaa meesha ka soo baxayso in ay wadaan hawlo muhiim ah marka saas darteeda waxaan jecelnahay dawladda waxaan leenahay waa dayax u soo baxay Soomaaliya madaxweyne Farmaajo waxaan leenahay na hogaami waxaan jecelnahay dawladda maaragtay annaka hadana beelaha baajuun waxaan kaloo jecelnahay hadana beelaha baajuun gaar ahaan waxaan u sheegaynaa gudoomiyaha baarlamaanka in maaragtay xubinteena oo xildhibaan nimada baarlamaanka kursigeena aanka banaanka ka taaganahay marka gudoomiye mursal saacadkayga hore waxaan markano taasna waa in laga fiirsadaa insha Allah waxaan jecelnahay maaragtay in qof kasta uu xaqiisa helo waad ogsoontihiin marxuum saqar sidoo u dhintay ilaa maanta oo wasiir xubinna ahaa ilaa maanta kursigiisa waa banaan yahay marka anaka sababahana ma naqaan insha Allah waxaan dawladda ka rajaynaynaa kursigeena qofkii la keen lahaa waa diyaar in maaragtay degdeg loo geeyo insha Allah taasna waa codsanayno oo dawladda madaxda qaranka ka codsanayno ugu dambeyn waxaan dawladda u rajaynaynaa in maaragtay guul iyo kala dambeyn inay nagu hogaamiyaan ilaa waxaan leenahay sanada soo socda hogaamiya hadana beelaha baajuun waxaan taageersanahay madaxda qaranka 100% waa taageersanahay si kasta u taageersanahay waxaan jecelnahay iyagana in ay markaan qolo kasta ama qof kasta xaqiisa ay siiyaan cadaalad iyo sinaan wax walba sidoo kale madaxweynaha uu ka dhawaajiyay mid ahayd maqaamka Muqdisho ee Banaadir hadana beelaha baajuun aad iyo aad ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa in maaragtay sida damaanta ay ka doodayaan xildhibaanada in maaragtay maqaamka 13 ama lagu daray la sheegay marka waxaan jecelnahay beelaha baajuun xaqooda inay helaan insha Allah
marka waan taageersanahay dowladda Soomaaliyeed qaranka aad iyo aad u taageerayna waan taageersanahay arrimaha gudaha waxaan u sheegaynaa anaka haddaan nahay beelaha baajuun suldaankeenna oo la yaqaan oo la caleema saaray oo suldaanka dhan oo meel kasta laga og yahay beelaha baajuun yaa waaye diili mahadi iyo odayaashiisa iyo ku-xigeenadiisa iyo 12 oday baajuun intaas keliya ayay leedahay taasna ogeysiinaynaa waxaan leenahay wasaaradda arrimaha gudaha ha ogaato suldaanka beelaha baajuun inuu yahay suldaan diili mahadi diili waa suldaankii waqtigii oo bagaati dadka soo xulinayo insha Allah taasna waxa weeye waa si ogeysiinay wasaaradda arrimaha gudaha qaasaan sidoo kale waxaa jiraan odayaal kale oo bixiyaan soo baxay oo sheeganayaan inay odayaal yihiin taasna laga digtoonaado waxaan leenahay halkaan maanta waxaa ugu nimid taageeridda dowladda aan taageerayno taageersantiin taageersan sama dowladda guul Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبوكم محمد رسول وفكر السنبيش باجون وحالكا سوغلت سيار موجنو تاغير دولده أنا قد وحالنا دولد كنوله مركا عربنا نبت نبت جلي شقة يهرمنا ربنا بعدما المساكين الله شعب الله بيلها واويل أنا مجرمي marka dii doorish waxay dhacaysan waxaan rabnaa si wanaag ah Soomaali ugu jirto in ku dhacdo beelaha waaweyn ay ku tumin beelaha yararka marka waxaan rajaynaynaa in wax walba wanaag ay ku dhamaadaan markasta anaga waxaan nahay dad oo dowlad taageer waxaan dishuguna mid taasoo waxaan muujinaynaa taageerada dowladda bacdaba anagoo aan nahay beelaha baajuun oo ku nool Muqdisho shirkeeni wuxuu ku saabsan yahay taageerada dowladda hil iyo hoob waan mahadsantahay anaka hizi beelaha baajuunki katika Muqdisho tunapopongeza madaxweyne Farmaajo taageer hil iyo hoob maadaama beelaha baajuun tulioka Muqdisho wachocho na wanawake na watu wazima tunapopongeza madaxweyne Farmaajo na waziri wazara na mgombea baarlamaanka na Umar Finish gobernatore dogo magaalo Muqdisho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.